ku soo dhawow fasiraadda riyooyinka. bismillaah salaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan ka hadlayaa aragtida miraha tiinka. Tiinka laba nooc ayuu leeyahay, midkan qodlaxaha leh oo wadankeena ka baxa iyo tiinka caadiga ah oo carabtan u yaqaanaan tiin. Ka ayaan ka hadlayaa sawirkiisana halkaa idiin soo saaray. miraha tiinka haddaa riyaad ku aragtid micnooyin badan ayuu tilmaamayaa. Wuxuu tilmaamayaa in ninka xaaslaha xoolo xalaal ah inuu kasbanayo. waxay kaloo tilmaamaysaa dhaxal gabadhaan la guursanin. waxay tilmaamaysaa ka guuleysi waxbarashadeed. waxay kaloo tilmaamaysaa xoolo. waxay kaloo tilmaamaysaa guur. gabadha la qabo aragtida miraha tiinka waxay tilmaamaysaa mashaakil soo afjarmay. haddii iyadoo qofka qaadanaysa mise qof siinaa mise cunaysa ay ku riyooto, waa hadal wanaagsan mise uur inuu rabbi awlaad ku arsaaqayo. gabadha xaamilada hadday ku riyooto iyadoo cunaysa tiin, waxay tilmaamaysaa miraha tiinka, yacni waxay tilmaamaysaa badqab caafimaad. culimo qaar waxay yidhaahdaan waxuu rabbi ku arsaaqayo wiil. waxay kaloo tilmaamaysaa ilmo baari ah saalix inuu rabbi ku arsaaqayo. ninka xaaslaa hadduu ku riyoodo tiin gurigiisa dhexdiisa uu ku dhex arko, waxay tilmaamaysaa taajirnimo inuu xoolo rabbi siin doono. wiilka aan weli guursanin hadduu ku riyoodo tiin, waxyaabo badan ay tilmaamaysaa. waxaa ka mid ah safar. waxaa kaloo ka mid ah guur. waxaa kaloo ka mid ah waxbarashadiisa, yacni inuu ku guuleysanayo.